qisadeenna maanta waa qirasho. Waa nin oday ah oo qiranaya arrin uu ku sameeyay wiilkiisa 30 sano ka hor oo ku beegan sanadii 1989. Sidaas oo ay tahay wiilku waxa uu istaahilay wixii lagu sameeyay. Website-ka Reddit ee lagu qoro qisooyinka qaybtiisa qirashada ayaa aabahani ku soo qoray qisada. In qisadiisa uu inala wadaago waxa ka dambeeyay dhakhaatiirta cilmi nafsiga oo uu sheegay inuu culayskiisa isaga dajiyo inuu qisadiisa la wadaago bulshada. qofku marka uu ku soo gudbinayo website-kan qaybta qirashada dambiga uu rabo inuu qirto waxa uu qarinayaa macluumaadka isaga ku saabsan sida magaciisa iyo meesha uu joogo. sidaas darteed waxaan aabahan u bixinaynaa magaca Aadan. aabahani sidoo kale waxa uu rabaa inuu ogaado ra'yiga dadka iyo faalooyinka ay ka bixinayaan si culayska uu dareemayo uu uga yaraado. waxa uu yiri aabahani dhacdada qisadani waxay ka bilaabanaysaa sanadii 1971. waxa uu yiri aniga iyo xaaskaygu waxaan isku dayeynay inaan ilmo dhalno. dhowr isku dayo kadibna xaaskaygii waa ay dhashay. markii aan maqlay inay uur leedahay aniga iyo xaaskuba farxad darteed ayaanu la dulnay. waxaana durbadiiba bilowday in aan isku diyaarinno soo dhaweynta wiilkeenna. waxaana doonaynaa inaan siino jacaylka iyo farxadda uu inooga baahan yahay oo dhan. inkastoo daal badan iyo rafaad badan ay lahayd maalinka uu wiilku dhalanayay, haddana waxa ay ahaayeen kuwa si aad ah u faraxsan. balse farxadoodii waxay isku bedeshay isbuucii koowaad mawjado murugo ah. wiilkan ay dhaleen sidii uu dhashay oo hintii uu bilaabay ma uusan joojin. markii isbitaalka laga soo qaaday ilaa iyo muddo gaaraysay 13 bilood oo hinta ma kala joojin. marka codkiisu isxiro oo uu beer bararo waxa uu ooyay isagoo aqamuunaysan si aamusnaan ah. awal markii ay ka soo qaadayeen isbitaalka waxay islahaayeen uu iska aamusi doonaa, balse arrinkii wuxuu isbedelay markay arkeen oo hintiisu inaysan dhammaad lahayn. oo hin isdaba joog ah habeen iyo maalin. Aadan waxa uu leeyahay xitaa markii oo hintu ka dhamaato waxaad arkaysaa isaga oo aamuska ku ooyaya, wajigiisuna qamuunyo iyo jacdad iyo caro ka muuqato. marka uu hurdo xitaa waa uu ooyaya. waligay ma arkin ilmo sidaas samayn kara, xitaa isma oran uu jiri karaa. xaaladaas waxa uu ku jiray wiilku muddo gaaraysa 13 bilood. muddadaasna dhakhtar aysan u geyn ma jiro. waxay bedeleen qolkii lagu hayay, waxay bedeleen habcunteedkiisii, way koolkooliyaan, way soo dhaweystaan, wax walba ayay u sameeyaan kaliya inuu oohinta joojiyo. waxay u keeneen alaabaha carruurta lagu ciyaarsiiyo, xitaa waxay u daareen muusiko. wax walba oo ay awoodeen ayay u sameeyeen, balse waxba ugama naasacadaan. 13 bilood oo ahayd oohin joogto ah, taas oo hurdadiiba u diiday gurigoodana u bedeshay mid ay musiibo ku habsatay. 13 bilood kadib wiilkii waxa uu joojiyay oohintii. iyaguna waxay is yiraahdeen hadda ayaad raaxaysan doontaan. waxay islahaayeen sida dadka caadiga ah ay noloshiinu mid caadi ah noqon doontaa, balse ma aysan moodayn in wiilkoodu galayo marxalad kale oo cusub. wiilkii waxa uu bilaabay inuu burburiyo wax kasta oo uu arko, bakeeriyada, saxamada, dhalooyinka, wax kasta oo ay gacantiisu qabato. wax walba oo uu arko waxa uu rabaa inuu tuuro ama jabiyo. muddo yar dabadeedna waxa uu bartay sida la isaga bixiyo xafaayadda ilmaha looga celiyo saxarada iyo kaadida, in ay guriga iyo agaarkiisa iyo xitaa naftiisaba ay ku haleeyaan. wuxuu bilaabay inuu guriga meel kasta ku saxaroodo kuna kaadiyo. waaba uu ku raaxaysanayaa waxaas oo dhan oo uu falayo. xitaa waxa uu xaajadiisa ku shubayaa meelaha qarsoon ee guriga si loo waayo oo aan loo nadiifin. heer waxa uu gaaray uu saxaradiisa ku firfirdhiyo guriga si ay u adkaato nadiifinteedu. markii uu weynaaday ma uusan joojin. weli falkii heer waxa uu gaaray uu galo qolka hurdada ee aabihiis iyo hooyadiis oo uu ku haleeyo wasakhdiisa. waalidkiis qolka hurdada way ka qufusheen, balse waxa uu u tuulayay saxarada albaabka hortiisa. wiilku reerka waxa uu ku bilaabay dagaal biology ah oo tan iyo markii uu 2 sano jir noqday ilaa uu ka soo gaaro 15 sano. bal qiyaas adigu wiil 15 jir ah oo guriga meel kasta saxara dhigaya. wiilku waxa uu ahaa sharkii oo qof ah. Aadam waxa uu yiri wanaag kasta iyo farxad kasta iyo kolkoolin walba ee aanu sameeyaba wiilku waa mid caraysan. waxa uu ka caraysan yahay xitaa nolosha laftigeeda. ma qosli jirin mar dhif ah maahe. markaasna qosolkiisu waxa uu ahaa dhoola cadayn shar badan ka buuxo oo jees badan ku jiro oo aad ka cabsanaysid. markaasoo uu sameeyo markii uu dhib aan ku xanuunsanayo uu noo geysto. maysan ahayn dhoola cadayn caadi ah, waxay ahayd mid shareed. iyagu waxay islahaayeen wiilkan idinka ayaa ka xumeeyay tarbiyada. waxayna isku dayi jireen khaladkiisa inay saxaan, balse waxba ugama hagaagi jirin dadaalkooda. markastoo uu si weynaadana dhibku waa ku sii siyaadi jiray qoyskan. ilbiriqsi kastana waxaa suuro ahayd inuu qayliyo ama xanaaqo ama wax jabiyo oo dhib weyn u geysto. heerka uu marayo waxa uu gaaray in markii uu 9 sano jir ahaa iskoolka laga soo ceyriyay 3 jeer. markii labaad ee iskoolka laga soo ceyriyo maamulkii waxay dhaheen ha nagu soo celinina wiilkan, ma hayn karno waxna ma bari karno. waxa uuna geeyay iskool gaar ah. iskoolkii laftigiisana
wiilkii meel ardayda ka fog ayaa la fariisiyey xitaa macallimiinta dardaaran ayaa la siin jiray inay la socdaan dhaqdhaqaaqa wiilkan xitaa waqtiga nasashada fasalka lagama bixin jirin macallin ayaa u xilsaarnaan jiray taasina waxay ahayd tan kaliya ay awoodeen in ay ka joojiyaan musiibo uu samayn doono danka guriga qolka jigada waa laga xiri jiray waayo mindi ayuu inta soo qaato ayuu meel kasta ku jaraya oo uu ku goynaya xitaa mar ayuu aabihii inta gadaal uga yimid lugta mindi kaga dhaawacay aadan wuxuu yiri dhaawaca xitaa ilaa hadda lugtayda raadkii uu uga tagay wuu ku yaala sanado kadib xitaa wuxuu bilaabay inuu dabka ku ciyaaro oo xayawaanada yaryarka ah gubo xasharaadka ayuu cadaabi jiray mar ayuu xitaa eygii guriga noo joogay fargeetada cuntada indhaha ka geliyay oo indhaha beelay bisad iyaduna guriga joogtay batrool buu inta ku shubay buu dab ku daaray intaasi waa inta ay arkeen balse Allah ayaa og inta aysan iyagu aragay uu sameeyay aadan wuxuu yiri wiilkii wuxuu nagu noqday bahal guriga nala jooga oo aanan waxba ka qaban karin waxaan u geynay tobanaan dhaqaatiir cilmi nafsi ah waxaan siinay dawooyin kala duwan balse waxba uma tarin markii wiilkoodu 16 sano gaaray aadan iyo xaaskiisu waxa filan waa ku noqotay inay xaaskiisu uur yeelatay balse aadam aad ayuu uga cabsanayay waxa uu ka baqay in ilmahaas dhalan doono uu noqdo sida wiilkan oo kale ama ka daran waxa uu ka codsaday inay ilmaha soo rido aad ayuu ugala dooday xaaskiisu way ka diiday sidoo kalena dalka mamnuucay ka ahayd in ilmaha la soo rido waxa kaliya ee u baanaanayd ayaa ahayd in ilmaha u soo socda alla u baryaan inuu uga dhigo ilmo caafimaad qaba ilmihii markii uu dhashay waxa uu noqday gabar farxadoodiina cirka ay isku shareertay markii ay noqotay gabar caadi ah oo dabeeci ah ee aysan ahayn shaydaankii ay horay u dhaleen oo kale aadan wiilkiisa wax walba ayuu u sameeyay wuu daneeyay koolkooliyay isku day raali gelintiisa balse wax natiijo kama gaarin aadan gabadhiisa waxa uu ka helay farxad aan inaba caadi ahayn markasta waa ay u dhoola cadeynaysay waxa uu aad ugu mashquulay gabadhiisa xitaa xaaskiisu gabadheeda bay waqtiga inta u badan mashquul ku ahayd waqtigaas laga bilaabo waxay ahaayeen kuwa aan u dulqaadan khaladaadka joogtada ah ee wiilkooda markastoo uu khalad galo way ku qaylin jireen ma aysan garaaci shirkiisana ma aysan taaban jirin balse wax kasta oo afkoodu kora way ku oran jireen wiilkooduna inta uu xanaaqo ayuu xaafadda ka tagi jiray saacado aad u fara badanna uu maqnaan jiray waxaaba dhici jirtay inuu guriga ka baxo oo uusan xitaa soo laaban maalinta ku xigta ma aanan garan jirin meesha uu aado balse kaliya maqnaanshihiisa ayaa dawa noo ahayd markasta oo aan dagaalno farxad bay noo ahayd waayo guriga ayuu ka tagi jiray xaaskiisuna aadan waaba uga darnay dulqaadkiina waa uu ka dhamaaday markasta oo uu soo galo waxay ku oranaysay nacalad yahay iga bax guriga hadda bax jiniyahow wiilkiina waxa uu noqday mid waqtiga intiisa badan ku qaata banaanka iyaga farxad iyo raaxo ay u tahay maqnaanshihiisu muddo kadib aadan waxa uu bedelay dhammaan albaabadii guriga waxa uuna ka dhigay kuwa adag oo aad u culculus albaabadana waxa ku xirnaa qufullo aad u culculus markastana qolalka way xiri jireen oo qufulba ay la daba taagnaan jireen hadday xitaa jikada wax yar uga baahdaan qolalku quful bay dhab ku siin jireen aadan waxa uu leeyahay dadka qaarkood waxay u qabaan in aan ka badbadinayno sheekada balse waa sida kaliya ee aan amni ku dareemi jirnay aadan wuxuu leeyahay annagu wiilka xabsi ma aanan galin xor ayuu ahaa xilliguu doona ayuu bixi jiray soona laaban jiray balse annaga ayaa isku xiri jirnay guriga cidda xabsiga ku jirta waa annaga nafteenna ayaanu ilaashan jirnay maalin ayaa aadan iyo wiilkiisu isku qayliyeen sidii caadada u ahaan jirtay wiilku waa uu baxay isagoo xanaaqsan gabadhiisii yarta ahaydna waxay ku jirtay qolka ay seexdaan albaabkana waa uu ku qufulnaa sidii caadada u ahayd balse mar qura ayaa waxay maqleen oohinta gabadhoodii ma aysan ahayn oohintaasi mid dabiici ah ee waxaad ka dareemaysay in gabadhu argagaxsan tahay oo ay dhib ku dhex jirto lamaanihii hal mar ay qolka albaabkiisa isku qaadeen wuuse qufulnaa raadinta furihii qolka ilbiqsiya ku qaadatay markii ay fureen ayaa waxay arkeen muuqaal aad u argagax galiyay waa wiilkoodii oo darishada uga soo dhacay gabadhooda wuu dul taagan yahay wuxuu gacanta ku haystaa mindi gabadha korkeedana waxa ku yaala dhiig caloosheeda iyo gacanteeda dhiig ayaa ka socda balse sida muuqata mindida hoos jirkeeda uma uusan gelinayn ee uu ku sarsarayay markaasna waxa uu dhabankeeda ku sareeyay mindida gabadhuna aad ayay u ooyeysay aadan ayaa u holaday in gabadha iyo wiilka uu kala dhex galo balse xaaskiisa ayaaba uga horeysay oo wiilkii ayay ku booday mindidiina waxay ku dhacday dhinaca shishe ee qolka wiilkiina waxa uu dhacay jeego islaanta hore waxay u baran jirtay ciyaaraha dagaalka sida kung fu iyo karate waxay wiilkii ku garaacday feer ilaa uu markii dambe dhiig fara badan wajigiisa ka yimid ugu dambeynna wuu suuxay aadanna gabadhii ayuu dhanka jikada la aaday oo wuxuu ka dhaqay dhiigii waxa uuna dhaawacyadii soo gaaray muddo daqiiqada kadibna waxa uu maqlay shanqar dhanka qolka uga soo socota wuu cabsaday balse caadi ayuu noqday markii uu arkay xaaskiisii iyada oo dhan oo wada dhiig ah faraheeda aad moodo in ay dhiig ku farxalatay gabadhii ayay eegtay markii ay hubsatay in uusan dhib badan ku ool ayay aaday suuliga oo ku soo mayratay
aadan iyo xaaskiisu waxay u wareegeen balakoonka kale ee guriga. Waxa ku yaalay qol iyo suuli iyo jiko iyo barando oo isku go'an. Waxayna go'aansadeen guriga uu wiilkoodu dhex yaallo ama ha ku dhinto ama ha ka kacee inay u daayaan. Waxa uuna ku noolaan karaa in muddo ah cuntooyin iyo cabitaano moolgaraysan oo guriga u yaala. Habeenkii markii ay ahayd saqdhex ayay maqleen cod taaha oo guriga uga imanaya, balse dheg jalaq uma aysan siinin. Maalmo kadibna waxay maqleen qof ku dhex socsocda guriga, balse 3 isbuuc kadib ayay maqleen cod qaylo ah oo guriga ka yeeraya iyo guriga oo la jajabinayo. Wixii intaa ka dambeeyayna mar dambe guriga kama aysan maqlin wax shanqar ah. 3 maalmood kadib ayay gurigii eegeen, mise waa guri la rifay oo la jajabiyay loona kidfay sida hilibka oo kale. Guri meel kasta lagu saxarooday aadna u jajaban. Hagaajinta guriga ayay qolo u direen, sidiisii ayayna ku soo celiyeen. Iyaguna waxay bilaabeen inay is ilaaliyaan. 3 sano oo ay deganaayeen kadibna way ka guureen oo guri kale ayay degeen. Aabahani marka uu qorayo sheekadan waa 2019. Maalinkii ugu dambeysay ee wiilkooda guriga uga tagayna waa 30 sano ka hor oo ku beegan markii uu qoraalka samaynayo 30 sano ka hor. Wuxuu sheegay in gabadhiisii ay kortinina guursatay ayna wali wada joogaan, xaaskiisiina ay dhimatay kansar, uuna xasuusan yahay wali wiilkiisii shalay badanna uu qabo. Daawada adiga maxay kula tahay sheekadan? Maxaase ku darsan lahayd? Ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto, saaxiibadana la wadaagto. Haddii aad ku cusub tahayna aad nagu soo biirto.